dawladda Ingiriiska iyo dawladaha kaleba waxaan doonaynaa inaan mar kale iyo mar kaleba u cadeyno annagu waxaanu joognaa dalkayagii oo xor ah oo nabad ah waxaanu joognaa dalkayagii oo xor ah oo nabad ah oo nidaamka uu haysta ee uu ku nool yahayna nidaamka kala dambeyntu ay jirto uu yahay nidaamka sharcigu uu sareeyo uu yahay nidaam qorigu taliya aanu ahayn meel fawda ka jirta maaha dalkayagu waa meeshaasi qofku ilaahay ka sakow nabadda ku nool yahay dadkiisana uu la nool yahay dawladnimaduna ay ka jirto waxaan cadeynaynaa oo kale dawladda Ingiriiska iyo kuwa kale ee marar fara badan waxa soo kale dhawaaq noocaas oo kala sheega xogta ay ka hayaan Somaliland waa xog u xaqiijinaysa waxa ay sheegayaan inaan runahay caafada laga leeyahay dalka dawladdiisa annagu ereygan caalamiga sida ballaaran loo isticmaalay ee imika makiinadii la furaba la yiraahdo waa caalami ma garanayno laakiin waxaan waayaa caalamka af Soomaaliga un boqoraaba laga dhageystaa caalamka loo dhageystaa ma jiro marka waxaan leeyahay annagu saxaafadan waxaanu ku ixtiraaminaa hadba heshiiska ay nala galaan iyo qawaaniinta caalamiga Universal labadaba way jabisay Universal labadaba way jabisay waxay xadaan warka Somaliland yalla isagoo tuugaabay soo daayaan waxaanu ku qaadi doonaa iyagoo leh tiknoolajiyadii ba casri noqotay tiknoolajiyadu waxay casri nimadeedu hadii tuugada tahay xalaal maaha anagu inta tuuga tahayna inta bilisku daba socon karo ku daba soconaya marka aad nabad iyo ku joogto dalka ee aad heshiisyadii aad naga baxday qoraalka ayaan soo dhignay maxkamadaasi iyo waaranadaasi maanta eerboodada ku yaala ayaanu ninka mulkiilaha ku leenahay maantana calooshaadii adaaba dibadda keenay adiga cadaawada Somaliland u haysay muujistay cadaawada Somaliland u haysay muujistay waxaanu leenahay kuwa xidhiidhka la leh Universal ee ganacsatada waaweyn ah ee xayeysiisyada ka sameeysta waxaad maal gelinaysaan cadawgii dalka saxaafadda madaxa bannaan waan u mahadnaqayaa waxaan uga mahadnaqayaa dadaalka ay ugu jiraan imika in ay noqdaan qaar isku duuban inay noqdaan qaar kulamo ballaaran qabsada inay noqdaan qaar maxaan idhaahdaa ka shira oo soo safna u igmaday inay hawshaasi la wado annaguna waan soo dhaweynaynaa in ay bal eegaan xeerarka meesha yaala kii hore ee saxaafadda ka labaad ee golaha wakiiladu ay curiyeen dabadeetana ay wixii ku hagaagsan maadaama ay xukuumadda ku haystaan maanta ilaahay mahadi inuu Axmed Siiraayna madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland yahay oo saxaafadda jecel wasiirkuna mid aniga ah oo iyaga kamid aan ahay fursadaas ay haystaan waxaan loo ogolahay bal xeerka inay iyagu wixii ay ogol yihiin golaha wakiiladuna loo ogolaado inay xukuumaduna ku raacdo laakiin waxaan idin sheegayaa saxaafadda madaxa bannaan ee dalka laga leeyahay saxaafadda madaxa bannaan ee dalka laga leeyahay macna ka diiwaan gashan ee localka ee muwaadinku leeyahay waxaanu ugu dul qaadanaynaa si horaan u yiri sida ubadkayagoo kale waayo waa muwaadiniin halkan jooga oo khaldami karayaan khaladka ay galaan shuruucda dalkan ku qaadeen